اوكي kusoo dhawaada asxaabe waa cashar ku saabsan adverbska waa muhiim qofka inuu wax ka fahansan yahay in English sida caadiga adverb wuxuu leeyahay qaybo fara badan laakiin maanta halkan waxaan kusoo gudbinaynaa adverb of manner adverb la yiraahdo adverb of manner wuxuu sheegaa habka ama qaabka shayga uu dhacay adverbska waxaa loo qaybiyaa sida caadiga ah regular adverb iyo irregular adverb halkan waxaa ku arki doontaa labada qayb oo waxyar aan kasoo qorqoray bal aan isla aragno oo isla daawano okay number 1 waxaan leenahay adverbs give more information about verbs adverb waxay bixiyaan xog dheeraad oo ku saabsan ficilka tusaale erayga run waa ordid run fast wuxuu u ordiyay qaab xawaare dheeraysa ah marka erga fast wuxuu kugu kordhiyay sida uu dhacay qaabka run ama ficilka run sida uu dhacay ayuu wax badan kaaga tilmaamo oo ah in uu xoog u ordiyay ka fahanto numberka labaad ee tusaalaha ah waxaan leenahay walk slowly si tartiib ah u socoto walk waa socosho balugayn sidee u eg tahay waxaan leenahay slowly waa adverb qaabka ficilkaas oo u dhacay ay cadeynayaan وهي run وفعلك fast وادverb walk وفعلك slowly وادverb هذا خصوصنا the word order notice know the word order خصوصنا amba sida loo hagaajinayo erayada macnaha meelaha ay galaan adverb maxaa frequency-ga iyo mannerka way kala bedelaan karaan so kan waa adverb of manner saa darteed wuxuu geli doonaa gadaal okay she dances beautifully waxay qoob ka ciyaartaa si qurux badan marka sidan ina dhahdo ayaa laga rabaa waxa la diidayaa ina dhahdo she dances she beautifully dances oo kale waxa fiican ina qaybta gadaal gees adverb of manner Number 3, number saddexaad regular adverbs sida caadiga ah irregular verbs ayaa jiro so regular adverbska waxa ay ku dhamaadaan ly adjective waa kuwan marka koowaad asalka then adverbka ay isku bedelayaan adjective tusaale sifa ahaan waxaan leenahay erayga clear at okay adverb ahaan wuxuu ku noqonaa clearly sicad careful taxadar si taxadar leh ayuu ku noqonaa adverb ly ayaan ku kordhinaynaa bad xun badly si xun fluent fasiix fluently si fasiix ah so irregular adverbska na qaybta gadaale aba slide-ka dambe ayaan ugu tegaynaa so regular adverb waa isla fahanaysan rajaynayo mar walbo adjective-ka waxaa ku kordhisaa oo kaliya ly then waxaa kuu soo bixi doono adverb okay numberka labaad word orderka ayaa iska fiirine numberka saddexaad regular adverbska in ly ku dhamaanayo ayaa ogaa doontaa numberka afraad waxaan leenahay some adverbs are irregular waxoogaa adverbsa waa kuwa irregular ah oo nidaamka regularka aanan maraynin ly ku daridda ahayd so kambalayla eeg adjectives good wanaagsan si wanaagsan wuxuu ku noqon karaa inaad tiraahdo erayga well good fiican well si fiican late waqti dambe late waxaan ahaa adjective ahaan late daahsan late waqti dambood xilli dambe fast dheereeya fast dheereeya oo si dheereysa early goor horo waxa iska bedelaa malahan erga adjective iyo adverbka labadaba qoraalka oo isu geeyeen inta badan erayada fast iyo early iyo late ba so waxaan halkaan noogu diyaariyey exercise oo haddii aad fahantay videoga aad macnaha intay istaajisato aad exercise ka shaqeynayso number 1
baleeg sida aan uga shaqeeyo. Bill always works hard. Okay, Bill mar walba wuxuu shaqeeyaa si adag. Bill erg waa subject, always waa adverb laakiin adverb of frequency waaye, ficilka laga soo hormariyaa. Works waa ficilki, hardna waa adverb of maana, qaybta gadaala ayaa la geeyaa. So Bill always works hard. Markasta Bill wuxuu shaqeeyaa si adag. Marka uu shaqeynta ay u eg tahay waxa way hard waaye. Okay, I speak French. Francisca ayaan ku hadlaa sidee fluently, si fasiix ah. That's adverb. Okay, 3 waxaan leenahay she doesn't cook well. Si fiican waxba uma kariso. waayahay they talk waxay u hadlaan slowly, si tartiib ah. That's adverb iyo exercise aan kaaga shaqeeyay. Haddii suuragal tahay waxaa aad u wanaagsan inaad videoga hakisato then aad ka shaqeyso exercise-ka. adaa u mahadsan tahay. haddii uu yahay cashar macquul ah, video waxtar leh, fadlan like saar, saaxiibadaada u gudbi. haddii aad nagu cusub tahana waxaa aad ugu faraxsanahay inaad ka mid noqoto asxaabta nala barata luuqadda Englishka oo right now ah luuqad muhiim ah oo everything oo waxbarashada haddii aad arday waxbarato tahay kaa caawin karta inaad wax baara karto, si fudud wax u baara karto. fadlan nagu soo bir asxaabtaada gudbi channelka.